السلام عليكم walaalihii qaaliga waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan haddii ay tahay markii ugu horreysay journalka soo booqatay subscribe inoo saar gambaleelkan furo si oo muuqaal walba aan soo dhigo sidoo kuu soo gaaro laagtin hanigila waa noo muhiim insha Allah waan mahadsantihiin inoona share gareeyo si aan u helno asxaab cusub oo adiga kula mid ah ee noogu soo biiraan journalkana kor noogu qaadan insha Allah meeshan waxaa waaye shaqo ayaa socoto shaqo qaran maanta waa maalintii axad ahayd muuqaalka inta kastoo aan soo daahiyay laakiin dib ma laha soo waxaan howsha adduunka socoto maanta waxaa waaye waxaa la dhahay banaanka halii baneeyo soo howsha dhan ayaa isku furmatay meeshan bacal ordaya oo dhar waxaa ku jirta dhar aan dalbaday internetka aan ka dalbaday soo marka waa isku babaroobeynayay meesha ayaan iska dhigay maanta horeeto jaanis maanan helin meel kale inaan soo dhigo soo ugu dambeyn si arkaysa waxaan ka bilaabay horta dariishada ayaan ka bilaabay gaagaabka waxaa waa dariishada istaagaa dhac meesha wixii maraa wax soo maraa magaalada laga fiirsadaa faati fiyuuska ayaa laga raadiyaa meeshaas soo gacmaha ayaa lagu tataabanaa afka ayaa la saaraa ilmaha yar waa iska fahmi karteen qofkii caruur haysto intii caruur haysan ilaah siiyo intii haystan awlaada ilaah u barakeeyo awlaada baariyaal ilaah nooga dhigo insha Allah waxa loo rafaadayo ee loo dhibtoona habeen iyo maalin aan usoo jeedno haddii ay naga xanuunsadaan waxa waaye awlaadeena ilaahay noogu deeqay soo ilaahay noo barakeeyo dulqaadkeedan inaan la imaano ilaahay ayaan ka baryanaa ugu dambeyn waatana mashiinka ayaan alaabta kusoo gurtay waxaa waaye gabadheydii yareed ayaan u bixiyay mashiinka way caawisay wallaahi inaba caadi maaha waqti aanan haysanin mashiinkaas aan umul ahay oo yacni cunuga yarna ii joogo wallaahi waqti adag aan soo maray laakiin alxamdulilah hadartan waxaa waaye faacid karoon gabar karoon allah mashiinka alaabta alxamdulilah haddii awlaada kaaga yacni markaas ay kugu oynayaan ama waxyaabo kale ay kugu soo baxaan alaabtaada iska aruurso kadibna markii awlaad soo kala seexsato ilmaha ku kala seexdaan oo adduunkaaga yacni howsha la iskuma stressiyo markasta muhiimadda inaad saarta ayaa wanaagsan ilmaha number 1 haddaa ka dhigto xilliga cuntada aad sii jirto aad siiso xilliga waqtiga la siixin jiray aad siixiso kadib ayaa waxaa ogaanaysaa yacni nafaas ama yacni markaas ayaa waqti helaysaa laakiin haddii aad dhahdo howsha ayaa ku ordaa waxaa waaye waqti badanna ma helaysa ilmihiina way kaa dayacmayaan soo ma fiicno markasta waxaad ka dhigtaa number 1 ilmahaaga gasho number 2 markaas kadibna wixii uu kaa kala dayacnaa ama howshii guriga kaa kala daadsanaayo kaleeto sameysa insha Allah waxba adduunyo orod laguma gaaro waa kasana jikadeena dhagdhag ayaan kasoo dhiganay ilmihii waa isa seexdeen soo marka waqti ayaan u helay inaan howshan iyo adduunyadan dhagdhag aan ka dhigto maanta waa maalin axad inkastoo muuqaalka xoogaha aan soo yara daahiyay laakiin karaal noqdo insha Allah kadib waxaan soo aaday dhar dhaqista ayaan soo aaday mashiinka dharka lagu dhaqaayay meeshan waxaan soo bixiyay maryaha kuraasto dhan ayaan kasoo bixiyay sida hore inuu kugu sheegay waxaan haystaa kuraasman maryahooda laga bixin karo aad iyo aad ay caawiyeen wallaahi markii horeeta aan soo gadanayn waaba ugu talagalaba in ay noqdaan maryo inaan ka bixin karo waayo ilmo yar ayaan haystaa waxaa dhici karta adigoo kuraasta fadhisaan oo kaleeto cunuga inuu matag lasoo boodo kuraasta markaas aadan maryaha ka bixin karin waa dhib iyo rafaad soo sida arkaysaan alxamdulilah waan inoo soo qalay maryaheeni waxaan kusoo dhaqay yacni mashiinka 40 daqiiqo ama yacni 30 u geysay insha Allah ha ka badinin groodarka lagu dhaqo si aad u fahantaan insha Allah si maryaha hadii kaleeto way kaaga yaraanayaan kuraasta oo way kadkaduudanayaan mashiinka wareegana ha iska gelinina si aysan maryaha dhow ciriir idin kaga noqonin oo idin kugu fududaato maasha Allah tabaarakallah meeshan waxaan ku jira maryo geliyo meesha sirka waxaa ku daatay make up ayaa ku daatay make up waa sumba meesha ku dhiga kama wafuqabo iga yaabiyo marka taa hooyo caruur haysato ilmaha ay ku yaryihiin waxaa fiican howsha yacni weynka oo guriga aan nadaafada oo yacni meelaha wasaqda laga soo dejinayo boorka aad rabto inaad ka jafto kuraasmanka hoostooda inaad soo hagaajiso hal maalin oo waxaa sameysta oo qaas ku wiigii ama ha noqoto maalmaha fasax oo guriga lagula joogo oo ilmaha laga hayn karo kaleeto maalinkaas maasha Allah tabaarakallah dhexda xiro inta kaleetana ma ahan yacni musqusho kaleeto jikado kaleeto eega markasta ay u baahan yihiin in la hagaajiyo soo wuxuu u baahan tahay maalin kasta gacanta inaad ku hayso kuwa howsha maba ku jirtaba soo daily waaye meeshan waxaan hagaajinayaa dariishada geeskeeda garaangalka waxaa waaye dhas aan la ogeyn iyo wasaq ayaa kasoo fuqday
waxa maxaa lahaye miiskan waa kana waa soo nadiifsan haddana wax yaro sharxaad oo simple easy ayaan soo saaranay insha Allah isku soo badinayo labado xabo sida arkaysa meesha saxanka marka soo saarto waxaan soo saartay laba xabo ubax meeshan waxaan soo saartay dhalooyin yar oo shumac aan geli doono insha Allah iyo geeda siro carafta waa kasaay inta yar aad haysato ku sharaxo insha Allah uma baahnid suuqa markaas inaad u aado ama yani waxyaabo kala duwan inaad sameysato waxaa jirto waxyaabo badan oo kala badan sidoo kale barkimanka qasama inay isku ka ekaadaan wax yar oo iska easy oo markaas aad haysato oo gurigaaga ku yaalo oo ku sharaxo muhiimadu waxa waa sheegaaga inuu nadiif ku yahay soo TV geeskiisa ayaan hadda waxaan soo saartay buug iyo birta yar ee shumacyada la geliyo ma sha Allah tabarakallah waxaan iska shitay waa quraan ayaan shitay oo ما شاء الله تبارك الله waxay ugu noqotay xilli dambe oo habeen sida arkaysan xogaa yara mugdi camal way karaa la noqdo anigana guriga mar dhow ayaan soo degtay nal iftiinka saaid yahay iguma xirneen insha Allah laakiin gadaal dab ayaan ka soo iibsan doonaa dartaan intaan deganahay waxa way haddatan 2 bilood camal ayaan deganahay soo maba ka gaarinba inta aad haysato quruxsan insha Allah waxba uma baahnid soo gabdhahayga quruxda badan waxay leeyahay walaalahayga aan jeclahay muuqaalka hadii uu idin soo gaaray xaqiisii insha Allah يعني وإنه ديري جرين كومنتي هذا قروح بدن هدي إيش قرت كومنتي وان كاجم هاد علينيا ويجور ولا شيء يعني هاي عوامات ومهم إن السعابية إن السكرب قبطع مقال كان إيش شر جريسي قبل بدن أو قروح بدن أو ولا عليه أو قالي إيش يجوسو بيران ماشي أنا حسوا هذا لوقي ديراي أو ماشي كبا حيل برف كواتقاني ديقو wasaq kabaha waxaan soo raacay baraf iyo dhagaxaan ayaa soo raacayso siiba dhagaxaanta ayaa ugu daranba soo aan waxa ii yaalo luuqa dheer meeshaas waxay taala armaajada kabaha soo waxyaabo badan aan ma wada dhigdhiganinba soo waxa roogi ayaan hadda ka qaaday waxaan sameynayaa waa hufar gareynayaa marka hore dhagaxaanta dhan ayaan ka gurbinayaa gabar yar oo baby ay ii joogto hadda waxa 7 bilood insha Allah waxay gali doontaa 8 bilood gabadheeda ما شاء الله تبارك الله والله وقتي ورده شلمي درات أي دلتي هذا هو القصة إن شاء الله إله ويتصدقنا إذا عافمات قبته وحي ويسعته وأنا رجينا مركز ترترد أي هذا بلعبة ماشي كبها مركز برف كلا قلي مع البنانك دولك ولا دقو وحقوم ليس برف مذوبات جريجر أو يوبطا مركو وقار دلالو دولك دقو soo maalin kasta ama yani galab dhaaf ayaan u tirtiraa si aysan wasaqda meesha ugu dhagin way gabadheed yartu way gurguurinaysaa waxa laga yaabaa dhagaxaantaas inay u tagto ee afka gashato ee gab ku baxsato adiguna yani il bila aadan il kale ma doorto adigoo ogeyn ay big waa xamaarata meesha joogta kaaliska arag dhulku markuu noo soo qalalay ayaa waxaan sameystay roogi ayaa mar labaad ku soo celiyay roogan xoogaa umaanan dhaweynin albaabka laga soo gala waayo qoyaan inuu iga noqdo ma rabin meeshaan waxaa inoo suran jaakadihii oo maalin walba la isticmaalayay kuwa kale tan sida arkaysa maalin dhaxas ayaan iska kala xareeyay waa muhiim jaakada aad ay tirada kaga bateen in la iska kala xareeyaa maasha Allah tabaarakallah luuqina saan ayuu noo soo baxay markaa soo hagaajinay meeshii kabaha waa kana kaal iska arag ayaan kasoo dhigay meeshaan derbiga waxaa ka maqan muraayadiisa insha Allah way noo imaan doontaa muuqaalkuna gabagabo mac salaamo